سلق النبي صلاة ربي وسلامه عليه رنتي وفرج ودن باكنا وانا وح سهلا لكن لم يسر الله يعني قفك اسكو هلا وردقا جوكتدا كتاب الله جل وعلا يسلق النبي iyo astaghfirullah iska saddexdaas iyo tasbiixdi afarta ma kala haraan qofka arimihiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu fududeeyay bal sheekh hadii aan duubno oo aan dadka u duubno adu sida isugu xijin lahayd aad ma adu kala hormarin lahayd quraanka wax laga hormarin kara malaha waa ta number 1 tasbiixdan ilaahay bay hirlada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala tanzihiisi tasbiixiisa waxsalan ma ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith لبدا كلمات مسهلا حيالي حي موجنا رب العالمين جل وعلا حي مركبينا دائم ابدا لا يموت قيوم نوحنا ما انت تاغنت هذا ما شرع الهي سبحانه هو المدبر هو القائم به لبدا لفظ والنبي انو دخدغي النبي انو دخدغي دعاء عند اراده تفريج كرب واكورنتي ادان وديك سامين دنا دد كان ودردان من اراده تايا لقيتي نعم يا حي ذكري والنبي صلى الله عليه وسلم ولها دعوة ذي النون النبي يونس مركي كربضة كتمي بدي النبي على وشيسا هبينكي في ظلمات 3 وإله إليه سبح قد رب ودحض وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت أيضا حكمت يا النبي صلى الله عليه وسلم كربت وحكم ذا magacyada ilaahay la adeegsan sida gaarka ah alxaliim jirta alxaliim ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisay xilmi baad weydiisatay waxa kamida nabiga sallallahu alayhi wasallam la ilaha illa rabbul arsh markuu tilmaamay alkariim baa ku jirta iyadan alazim baa ku jirta marka alazim iyo alkariim iyo alxaliim iyo hayya qayyum iyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin adiyadu tirada ka badanta qaar sheegi doona laakiin magacada sida gaarka ah munaasabadan haddaan u fadhino sida gaarka ah ee runtii qofka inuu aad u soo celiyo tawatan ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga saari doona biidna subhanahu wa ta'ala farashu farad biidna subhanahu wa ta'ala